طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أشرق الصبح المبين نور خير المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhowaada duruustii aan kaga hadlaynay akhlaaqda nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam. waxaan maanta soo qaadanaynaa oon wax ka taabanaynaa, wala sheegi kari mayno nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu u ahaa amiin, wax walba loogu aaminay, amaanatu rasuuli sala allahu calayhi wasalam. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu caan ku ahaa alamiin alsaadiq ama alsaadiqu alamiin, kii runta badnaa, kii aaminka ahaa. caan buu ku ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. inuu qofku amiin noqdo waa dabeecad fiican, waa akhlaaq aada iyo aada u saraysa. sida awgeed nebigu weligii ma khaynin, khiyaannimo weligii lagama arkin nebiga calayhi salaatu wasalaam. bal nebigu calayhi salaatu wasalaam maka iyo quraysh dadka ishayeen ee islaamka ugu yeedhay waxay u bixiyeen intaan loo waxyoon ka hor alsaadiqu alamiin, runbadnihii aaminka ahaa ayay u bixiyeen nebiga calayhi salaatu wasalaam. maxaad u malayn markuu waxay ku soo degay oo lagu adkeeyey ammaanadana nebigeena calayhi salaatu wasalaam. waxaan wala ognahay nebiga da-diisu markay gaadhay calayhi salaatu wasalaam 35 jir, waa intaan loo waxyoon ka hor nebiga calayhi salaatu wasalaam. qoraysh baa waxa ay doontay kacbadii inay dhisaan. kacbadii roob baa da-ay, daad badan baa galay, kacbadii way daldalaacday oo way duntay. kacbadii saqafkeygii baa soo dhacay, macdan badan iyo khayraad badan oo kacbadu ay lahayd tuug baa xadday. kacbadii qoraysh waxay goosteen inay dhisaan, kadibna way kala qaybsadeen. qolaba waxay tiri annaku intanaan dhisaynaa, ilaa kacbadii la dheereeyey oo la dhisay. markii ay soo gaadheen meeshii la dhigayay xasharul aswadka la salaamo ee la dhunkado, way isku khilaafeen quraysh. qabaa'ilkii quraysh ay ka koobnaayeen baa isku khilaafay, annakaa dhigi iyo annakaa dhigi. maxaa yeelay dadka dhiga waxay ka dhigantah kuwaasaa ugu fadli badan, ugu khayr badan, kuwaasaa ugu fiican, kuwaasaa ashraaftiya. meeshii bay isku haysteenoo muddo ku khilaafsanaayeen. kadib waxay ku heshiiyeen qofka ugu soo horgala albaabka masjidka inuu kala xukumo. odaygii la oranayay abaa umaya bn almugiira ayaa waxau hi waxba iskhilaafina, han ku heshiino qofka albaabka ka soo gala hayna kala xukumo oo ha yidhaahdo kuwaasaa dhigi. albaabkii baa la wala eegay, waxaa soo galayba nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam. laakiin markaa looma waxyoon, da-diisu waa 35 jir, 40kana waa loogu waxyoonaya nebiga calayhi salaatu wasalaam. quraysh oo dhan way farxeen, way boodboodeen, waxayna haada alamiin, kan waa amiinkii weeyaan, kii aaminka ahaa weeyaan. radayna radina radina haada moxamed, kan waa moxamed, raali baan ka noqonay, raali baan ka nahay, hana kala xukumo. cadaalad, amaano, run ayaa lagu yaqaanay nebiga calayhi salaatu wasalaam. waa quraysh. nebiga markii loo waramee la yidhi kala xukun, adiguna kala xukun, qoladaasi ha dhigta dhe kacbada xajarul aswadka meeshiis. nebigu waxau yihi war go ii keena. go baa loo keenay, nebigu wuu goglay, dhagixii buu dhex dhigay calayhi salaatu wasalaam. kadibna wuxuu war hariraha qabta, wala qaada. way wala qaadeen. markii godkiisii lasoo gaarsiiyeyna nebigu qacmihiisii sharafta lahaa ayuu ku dhigay calayhi salaatu wasalaam. idan nebigu wuxuu caan ku ahaa
alsaadiqu alamiin kii runta badnaa ee aaminka ahaa. wixii loo dhiibo aamin buu ku ahaa. waxa lagu saraysta ee sirta loo dhiibo aamin buu ku ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. nebigu sifadaasi caan ayay ahayd. nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaad og tihiin qofku wuxuu u dhiibtaa ammaanadiisa qof ammaanadiisii iyo waxyaaluhu qof uu ku aamino uu jecel yahay. quraysh xataa markuu waxyii ku soo degay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaalahooga ay meel kale ku aamini waayaanba isaga u dhiibi jireen. noohay maxamed adaa aamina, noohay nebiga u dhiiban jireen sala allahu calayhi wasalam. ammaanaad badan ayuu nebigu hayay. hadda way la dagaalamayaan ogow, way ka soo horjeedaan ogow. haddana waxay maxamedo meel kale ma hayste balyahay adow adiga aamina. nebigu sala allahu calayhi wasalam ammaanadaasuu hayay. habeenkuu hijroonayay ay dooneen inay dilaan ammaanaad fara badan buu hayay. muxuu samayn? caliy bni abi aalib ayuu u sharxay nebigu. xamaanta hebel baale, taana hebel baale, taana hebel baale. waa ragga la dagaalamaya ogow. nebigu dariiq dheer buu sii gelayaa ilaa madiina. sahay baan ka dhiganoo xamaantoodana daalama ma oran nebigeenu maxamed sala allahu calayhi wasalam. cali buu u yeedho u sharxay ammaanaadkaa dadkii lahaa u celi, kan hebel baale, tan hebel baale. wuu kala nebigu calayhi salaatu wasalam uu isa safeeyey. wax ammaano ah oo agtiisa taalay ma jiro nebiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan ognahay haweenaydiisii caqliga badneed khadiija radia allahu canha wa ardaaha lmuminiin markii ay maqashay moxamed ammaanadiisa iyo runtiisa iyo waxay ahayd haweeney carmaliya. laba nin baa hortii nebiga soo guursaday calayhi salaatu wasalaam. xoolo badan iskale oo raggu ay ugu shaqeeyaan, xoolaheegaa faraha badan. waxay maqashay moxamed ammaanadiisa, runtiisa. waxay raadsatay si ay usoo kaxayn lahayd, odhan lahayd iigu shaqee. waa u dhiibatay nebiga calayhi salaatu wasalaam. nebigu wuu u dhoofay, shaam buu tegey, xamaan buu soo iibiyey, wax buu sii iibiyey, wuu shaqeeyey. wuxuu u keenay wax raggii hore ayna weligood u keenin. weligeed faa'iidadan oo kale may keenin. waxbay khaa'ini jireen, waxbay kala wadeen. laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam ammaanadiis waxaa ka yaabay wiil yare ku dartay oo la socday nebiga oo maysara la oran jiray ayaa ka yaabay. khadiija u waramay, uu yihi khadiija kan oo kale ma arag. khadiija way jeclaatay radia allahu canha. saasuuna ku guursaday nebigu calayhi salaatu wasalaam. iyadaa doontay oo codsatay inuu nebigu guursado sala allahu calayhi wasalam. nebigu saasuu ahaa. awal shay waxyaalihii ugu horeeyey islaamka bilowgiisii dadka amri jiro ku adkeyn jiray ammaanada ka mid ahaa. markay asxaabta u hijroodeen dhulka iyo xabash ee boqorkii najaashi ay la kulmeen. najaashi hal su-aala ayuu weydiiyo waxa uu ku yidhi muxuu inagu yeedhaa, diintiisa nooga warama. jacfar ibn abi aalib baa hadlo waxa uu yidhi ayuha almelik kunaa qowma ahla jaahiliya nacbud اlasnaama wana'kulu اlmaytata wana'ti اlfawaaxisha wanaqطacu اlarxaama wanusii'u اljiwaar. boqor yahow, dad jaahiliyiina ayaanu ahayn. asnaamtaan caabudayna, meydkaan cunaynay, xumaan oo dhan baan la imanaynay, qaraabadaan goynaynay, jaarkaan xumaynaynay. ya'kulu اlqawiyu mina daciif, kayaga xooga badan ka daciifka oo xoolihiisa qaadanayay. sidaasaan ahayn, xaaladaasaan ku sugnayn. ilaa ilaahay noo soo saaray rasuula mina, mid annaka naga mida. nacrifu nasabahu, nasabkiisa aan naqaano. sidqi wa sidqahu wa amaanatah, amaanadiisa iyo runtiisana aan naqaano. amaanadiisa iyo runtiis, amaanadiis iyo dhowrsoonidiis. wuxuu noogu yeedhay ilaahay keligii inaan caabudno. wuxuu noogu yeedhay inaan ka tagno asnaamtan iyo waxaan aan caabudayno. wuxuu noogu yeedhay inaan ammaanada sideeda u gudano, uga soo baxno, inaan qaraabada xidhiidhno, oon jaarka wanaajino. wuxuu noogu yeedhay inaan ammaanada sideeda uga soo baxno. waa waxyaalihii ugu horeeyey uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa ku rabeeyey. qofka muslimkii u waa qof aamina, khaa'in maaha weligii. saasay u qireen, gaaladii ayaa u qiray. hiriqle markuu abu sufyaan weydiiyo ku yidhi muxuu nagu yeedhaa, wuxuu sheegay ammaanadiisa nebiga calayhi salaatu wasalam. ammaanada ayuu sheegay, runtuu sheegay, salaaduu sheegay, cibaadada, waxaasuu noogu yeedhaa.
ayuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam aad buu aamin u ahaa. wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi mararka qaarkood aqalkaa ku noqon, waxaan arkay xabad timiro oo meel taala, inaan cuno ayaan dooni, kadibna waxaan xasuusan bilow waa sadaqad bay ka dhacday, waa ammaano. waxaan anigu aan leeyahay neeb ma aha, waa xoolo sadaqadeed oo aqalka la keenay oo masaakiinta loo qaybinay bilowiyay ka dhacday. wuxuu yidhi nebigu waa iska dayn calayhi salaatu wasalaam. aamin, xabad timira ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diidayaa inuu cuno calayhi salaatu wasalaam. nebigu wuxuu ka waramay qisad cajiiba oo ka dhacday reer banu israa'iil. nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam, nebi maxamed oo ka sheekaynaya, maxaa malen asxaabtiisa uga sheekaynaya. nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam, nin baa iibsaday, nin ka iibsaday guri, caqaar buu ka iibsaday. ninkii iibsaday guriga ayaa gurigii markuu baadhbaadhayo hagaajinayo wax qodqoday ayaa wuxuu helay jirxad ay ka buuxdo dahab baa ka buuxa. ninkii nin aamin u ahaa, ninkii aqalka uu ka iibsado u tago war wuxuu yihi aqalkan kaa iibsadee, kaamaa iibsan jirxaddan yare dahabkan ka dhexale meele iga qaado. ninkiina wuxuu yihi waa aamin, war anigu malihi, anuu aqalkii iyo waxa ku jiraan kaa iibiye adeer, dhulka iyo waxiisoo dhan baa kaa iibiye, oradoo meelaha la tag. labadiibaa iskhilaafay, iga qaado dahabkii iga qaado ayay isla yihiin. oo jirxad idil oo dahaba, maxaad u malayn? dadkuna way iska baahnaayeen oo iska mid walba waa aamin. bar waxaanu malihide, anuu aqalkaan iibsaday, kana wuxuu le war de aqalkiiyo anuma anigaa le, ilaahay baa ku siiyey, dhulkaad meeshaasumaad ka hesha, iska qaado. way isku khilaafeenoo nin bay ula tegeen kala xukuma. kiiba wuxuu yihi war aduu gabadh ma leedahay? ha. war adna wiil ma leedahay? ha. isku guuriyo oo xoolahana wax ugu dhiga, iskugu meheriyo oo xamaan ugu dhigo oo ka inta kalena u sadaqeeya. saasuna ahaayeen, dad wanaagsan ayay ahaayeen oo ammaanada ilaaliya. bal nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka waramay nin ayaa u imanaya, nin wuxuu leeya war kun dinaar waa dadkii hore amaahi. markaasuu leeya ken qof kafiilkaa noqda. kafiil ma haysta buu leey, ilaahay baa kafiiligaa. haya wakiilkan, ilaahay baa wakiiligaa. haya buu leeyay, ilahay waan aaminay. ho ninkii uu qaadayaa 1000 dinaar, badduu raacayaayo, doontuu raacayaayo, badduu dhex maraya, meel buu tegaya. ninkiina wuu ogaa inuu badda uu ninkii raaca, doon uu raaco, badda uu maray. maalin walba wuxuu isku dayay waktigii ay ballantii ay gaadhin inuu meesha yimaado. kiina inuu ammaanadii soo celiyuu rabaa, doonba waaye, meel walbuu ordoo doon uu soo raaco waaye. muxuu samayn? waktigiina wuu gaadhay, qori buu qaado kala gooyey, ammaanadii buu dhex dhigay, 1000 dinaar warqad buu qoro, walla waan kari waayey inaan ku imaado oo doon baan waayey. uu ku soo xidhay ammaanadaas, badduu istaago ugu tuura, wuxuu ilaahu adaa wakiil iga ah, ammaanadiina waktigeygii wuu gaadhay, ilaahu gaarsii. badduu ku tuuray. ninkii kalena dhinaca kaluu joogaayo, ninkii waa kii badda maray ee wuu sugayey. siduu u sugayey ayuu qori yar hero, wuxuu yihi bal reerkaagii ha shitaan. qoryihii buu soo guray. qoryihii waxaa ka mid ahaa ammaanadii. warqadii buu akhriyey, ammaanadii ilaahay uu ka guday. ninkiiba markii dambe yimid isagoo ordaya. markaasaa waxaa ku yihi ammaanadii ilaahay wuu isoo gaarsiiyey, ammaanadaa soo dirtay ilaahay wuu isoo gaarsiiyey buu yihi. idan nebigu sala allahu calayhi wasalam isaga inooga waramay qisaskaas. qofka muslimkii qof khaa'ina ma aha. bal nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku sheegay laa iimaana liman laa amaanata lah. iimaan male buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. qofkan ammaano aamin aan ahayn oo dadka waxooga khaayinaya, iimaan male buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. iimaan buuxa ma hayo, iimaan male buu yihi nebigu. qofka muslimka maxaa lagu yaqaanaa? waa aamin, waad aaminaysaa. bal nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay ammaanada marka la dayaco inuu qiyaamihii haddeed imanayo. waa calaamaatu saaca, haddiyaad garoobu yihi qofku. nebigu waxa uu yidhi faidaa dayicat alamaana faاntadir isaaca. marka ammaanada la dayaco saacadda sug, qiyaamihii sug, marka u diyaar garow. qofku hadduu ka soo bixi waayo ammaanada oo gudan waayo oo ilaalin waayo, waa calaama min calaamaati nifaaq. munaafiq ayuu noqonaya qofku hadduu ilaalin waayo. uurkuu ka buka, uurkuu ka gaaloobay, waa khatar. sidaa awgeed qofka muslimku khaa'in ma aha, ammaanada wuu gutaa, uu ku dadaala dadka waxooga inuu siiyo.
nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo oo ka waramaya calaamadaha lagu yaqaano munaafiqa aayatu lmunaafiqi halaath munaafiqa calaamadaha lagu yaqaano 3 idaa xadatha kadab hadduu waramo sheekeeyo be buu kaa buuxin wa idaa wacada akhlaf hadduu ballan kuu qabto ballantii buu goyn wa idaa tumina khaan haddii ammaano loo dhiibto oo la aamino khiyaannimo maadaa i dhiibta markhaati keen cidlo ku dhigi qofka muslimku sidaa ma aha xataa haddii lagu khaayino adigu adu muslim baa tahay inaad tidhaahdid anna waan khaayinayaa ma aha ma khaayino muslimku khaa'in ma aha ammaanada wuu gutaa nebigu waxau ihi addi lamaanata ilaa man i'tamanak war qofkii ku aaminay ammaanadiisii u gudo oo sii walaa takun man khaanak qofka ku khiyaanay adigu waa khiyaanin muslim baan ahay dhe or anu maa kuma khiyaanayo muslim baan ahay muslimku waxba ma khiyaano ammaanadu waa shay khatara bal nebigu wuxuu inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam qof hadduu war kuu sheegayo oo hareeraha yaro eego ogow waa ammaano wuxuu kuu dhiibanayo nebigu waxau ihi idaa xadatha arajulu bilxadiid ninku hadduu warku u waramo uma iltafata uu dabadna yaraa daymoodo uu dadka iska eego fahiya amaana waa ammaano buu yihi nebigu waa arrin laguu dhiibta lagugu aaminay ha khashifin ha fadeexadayn arrinta dhex marta ninka iyo haweenadiis nebigu wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam inay tahay sir idan qofka muslimkii ammaanada wuu ilaaliyaa waa qof aamina calaamadaasuu ku dhegsan yahay oo wuxuu leeyahay muslim baan aho aamin baan ahay wuxuu ku dayanayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam alsaadiqu alamiin nebiguna caan buu ku ahaa ammaanada waxaan ku dayano wajazaakum allahu khayra وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع ورفعنا صوت حق من ربى هذه البقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع
جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير